how maxaa tiiriya may erti midi miidaysay maahino xafaayadda coffee baby coffee baby saana ilmaha uga qoslisa kulmiyo bulshadu kama maarante kaafiye ahaw waryaarahan dadweynihii ka soo qayb galay markii la yidhi kaalinta koowaad idaacad ahaan kulmiyaa kow gashay hal mar ayay wada istaageen farxad darteed waxayna qireen markhaatina ka noqdeen inay garabeeshin aan lagu siin ee idaacaddaasi mudnayd in la siiyo sharaf iyo karaamadaas war xafladdaas muqdisho awaar markay shahaadooyinka bixinaysay waxay u wakiilatay inuu guddoonsiiyo reediyo kulmiye caalimka Soomaaliyeed Sheekh Cali Wajiis wuxuuna yiri markaan tartanka idaacadaha maqlay ayay qalbigayga ku soo dhacday reediyo kulmiya ku guulaysan doona wayna ii rumowday iyadoo la jirin koox ama urur kaalmaynin wax lagu kalsoon yahay midii koonka naga siisay oo aan kilbiye beel qoso kulmiya ma kulmiya kulama jiro kaamana jiro warkayeenan kulama jirto kaamana jirto waaye war hadaan idna la jirin adna ka jirin xagay jirta aryaadaha raadiyihii kulmiyo kulligood shacabkeenu ku kalsooni qabeen oo sheekadii kalamaan ka baxayso miya ku soo boodi oka waryaarahan shacabka Soomaaliyeed waxay lahaayeen kulmiye raadiyo kulmiye adaa kuma yaal dhacda wixii koonkan ka dhacay kobtay ka dhacday dhacdada wararka nagu kaafiye kulmiye raadiyo kulmiye war maxaad kulmiye kaliya u sheegaysaan xalay waxa la abaal mariyay ganacsadaha u yar Muqdisho waa mahadsan yihiin Muqdisho weed hadaysan kuwa badarka badan heesta aysan bilad ugu darin waniyow way qaldalaayeen Muqdisho weerkana sheegaysaa nin qada haysta ayaa qada loogu daraa warnimada warka naga dhaxgelinay wiilku horta waa 12 jir liidaayo ku miisaama dadka culeyskooda aryaadaha hilibka dadka ma ka mushtaraaxo ka miisaama war wiilku waa wiil cajaa'ib ah wuxuu leeyahay iska socon isla soco 12 jir fakarkaas iyo eragaas ba keenay bilad waa mudan yahay aryaada wiilkii hal abuurka fiican la yimid oo kaaraha sameeyay Muqdisho aweed maxay bilad u siin weysay mise kaaraha ka cabsadeen war ma haysiin xildhibaankii la yiri waa 30 milyan haysta Abdullaahi Maxamed Nuur xisbiga Xasan Sheekh ee midowga nabadda iyo horumarka waa ka baxay mucaaradkii uu cadcadayna uu ka tanasulay saacadaha soo socdana waxa la filayaa nabad iyo nolol inuu ku biiro war dardaarankii goodaha baro miyuu qaatay booskiisii mucaaradnimada waxaan u malaynayaa inuu gali doono xildhibaan Daahir Amiin Jasow sababtoo ah wuxuu lahaa maalin dhaweeyay miisaaniyaddan aan sixinay maxaa lagu qabtaa maalintii ka sii horeysana wuxuu lahaa guddiga dhaxaya lacag la xaday been ay sheegayaan marna wuxuu dhahay dhaxdhaxaad baynuna war afkiisa iyo dhagihiisu miyaan ismaqlayn war waxa la yiri geel waa wada jira waana kala jira waxa kale la yiri sida gaari raadkii waxyaw gees walba u jeeda war may kale leeray loo jir banka kulanti banka shal tabtiya leeri war aadan isaaqow aflagaadadu sheekada nooga mid ma ahayn war ninkan aadan isaaq maahna waa mid isaaq war waxaad sheegaysid maahna waa ibrow eberow ilaa ay hadda wali waxaad ku jirtaan aflagaadada iyo caydi waryaada xan fireesha ayaa idin haya aqalka sare wuxuu bedeli rabaa goliya shacabka maanta waa isku yimideen waxaa la sugayay inay miisaaniyadda ka doodaan oo ansixiyaan hadda way ka kala tageen war aqalka sare in miisaaniyadda wax kule ma dhici karto warnimayo waxaan la yaabanahay saraakiishii hay'adda nabad sugidda haadgeed waa ay naqdeen maqaayadda aad soo fadhiisato waxaad arkaysaa afar ku ag fadhida oo baagamuunda ah boolis lagama dhigin nabad sugidiina maaha budgetkayni waa la qaataa ayay dhaheen meelna kuma tirsanin waroy nabad sugidi baagamuunda meel ma fadhisee shaqadeeda sidaa yay ku gaadin oo aqaldami wariyaa nin baahan xanta lagama qarsadaa leeyahay marka niman mushaarkoodii waayo ilmihii ka baahan yihiin oo gurigii ka warwalaya maxay ka gaadayaan maxay wax gaadan cidnaba ma shaqeeyaan waryaalahan waa iska tawaawacaysiine Soomaaliland cirna ma joogto dhul lama joogto kadib berbera aan imaaraadka ku wareejinay hay'adii DBWOL waxay yiraahdeen waan ka guuraynaa oo waxaan aadaynaa Asmara iyo Eritrea iyo waxaan aan garanayn marka waxaan u malaynayaa in qoladan aan jaarka nahay ay taa ka dambeysay marka ilmaha iyaga caanahoodii khatar buu ku jira ee Soomaaliland war waxa la yiri nimayo in kastoo rasaas la isku rido oo rag lagu laayo kama raysta aadmigu inay run isu sheegaan aroor kasta hal baa jira yaa ku yiri beenay ku sheeg yaa run sheega idaacada kulmiya abaalmarinta ku mutaysataa lagu yiri warnimayow
been waa ku soo daallayay dhegaysta ra'yigii fayow baa bulshooy dhaliya raandiise inkastoyna raafjiidayaan raxan shisheeyaahu inkastoy riskeenna la rabaan rarankii yaahuuda oy hoos inoo riixayaan waa la roon yahay rajo qarannimaa muuqatayo nabadya reerayne qof walbow ka qabo reer dhismaha rarayow gelin beeniraad male dhiilalowrun mamuude biis markaanaw mar labaad noogu soo celi heestaa suudaaniga wareedhaha baadiyo roob waa ka daay laakiin aryaaliyaa sanbab nooga dhacay wardan baa ii run sheegtay ragnimo ma waayin miyaadan maqal aryaalaha ninkaan heesta u qaado waa qaldaneeda waxay ahayd buufisraad male arbuufisraad male ee taariib run ma mooday allow liibiya ka gudubnaa waryaa ari wax kama taqaaniin dhegaysta ree carabeed magaaliyo haddaad raxan idaa dooni waa inaad rugaad leedihiyo raas u gadataa warnimayow guddoomiye degmada yaakshiid ayaan dhoweed waa tii layidhi musuqaa lu helo shaqada waa laga joojiyey xalay haddana war kalaa soo baxo xilkiyaaba laga qaadan layidhi marka maxkamaduna kuma xukumin waxaa lagu eedeeyey marka guddoomiyaha dembigu ma ku caddaada mise isagaa la nacay war dawunka kunow ulmalang iyo jeela giilman waayta lankiya nacbantana qatalman waayto leere warnimada waxaan maqli jiray musuq maasuq hore xilka qaadis dambuu leeyahay war horaa loo sheegay musuq maasuq soomaali waa meheradeedii ma wax kalaa ninka lagu sheegay nabay waxaan su'aalayaa musuq iyo maasuq labadaa nool la yidhaaho waa niman mas-uuliinoo magac dheere waa beeshee horta war ilma adeeru lamadaasay gaado iyoonay gariyu war qof aan maxkamad ku caddayn dembiye lamaba dhihi karo sharciga waa ka baxsan tahay in lagu tiro ama laga tirana waa sharci boowe xubnihii baarlamaanka ee puntland waa la dhaariyey haye ma ununkaa haddaa naloo dhaaraa haddana war xubnaha baarlamaanka puntland waa 66 xildhibaan 40 musharaxaana la rabaa inay kala doortaan hadda nimankaas shaqa u taala shaqo adijaabkoodu waa buuxsama way ka wataan baraada waqtigooda waa ha raaxaystaan warnimayo horaa loo yidhi musharaxnimo hore madaxweynenimo dambay leedahay array ilaahay ha ku xamdiyeen dad aan shaqaba haysanina boowe puntland waa hooyadii federaalka war adeero somalilan federaalkiina ka mid maaha galmudugaanba ka baqaya inay federaalka ka baxdo war caawa ciyaalka magaalada waxay ii sheegeen bandhig faneedyo in la qabanayo kuwa qabanayana falaashay jaabka ku wataan hal haboo heesuu kuba jiro afka u nuxnuuxinaya keliya marka luqaawan haddaad rabto waa gooni laakiin hamoodi in lagu heesayo war ma falaash bila fanaanba maya waa qof isnuuxnuuxinay iyo cajalo daaran waryaala ninkii wax bartay wuxuu yaqaanaa inuu jiraan kacaankii warshadaha haddana waxaan ku jiraa kacaankii kumbuyuutarka ee dadka hala yaabina kacaankan kumbuyuutarka qof walba heeska kooxaan dhiso miya maysiin lahaa gobolkasay sheegasaan korkana dhiing dhatana dhiing dhiindhiindhiing ma wal kale lika dheefaw ma jarta war horta biladiyaa guddoomay kulmiye rakisa tafasaya gadoomi war agaasimaha ka khudbeeya meesha war injineerku winadi alxaaji marwaan mayo husaan yeleere aryaadhaha xaaji iyo rakisa meel ma wada galane naga hor taga waryaada war waddankiinna u fakera ha murminine warya isilgaamo warya aryaa dantaada gaara ha moogaan maaney maskaxdii dahanaysaay maanta way iga digniin xoog haddaad dilaa tahay haddaad qurux ku daran tahay haddaad magac ku dadan tahay haddaad darajo xidhan tahay haddaad daaro fooqiyo dad yaduunya leedahay duubkii caddaa iyo camalkaadii dunidaa duur kala carraabiye intaad dibadda joogtaan dib in loo xisaabtamo sheekada ha lagu daro aakhiraad dambayse alla ilaaha waa laga dul hadlay odaga war haddii lika kor hadalay gurhaansaarka hal jeeyey hindaan war iin sheego dagaaldan iyontay bilaadad wadiin joojeesidindhay duqriidinka aryaadhaha sanadkan dhammaadka dad badan aad dhintay ee ilaahayow sanadkan soo socda noo xasile war dadka la dilay waaye waxa badnaay aryaa ama toos ha loo dilo amba si dadban ha loo dile waxaan idin dhihi lahay how sanateegaasagootintiid kan soo socdaana soo dhoweyn war sanadkii tegey barbar ayuu ahaa sanadkanna waa dhiindhiin war allah u naxariistay xuseenow faaraa wuxuu yidhi qaar koo horreeyoo hodanaana dhaafae kuwa harayne dabadaa waa la hubsan doonaa kii noo hagaagee noqo loo han weyn yahay war allah u naxariistay cabdulaahi qarshe wuxuu yidhi belada hore rooran tan dambana reeban tan haraaruhuna riixan tan korena raaran tan hoosena radeeban marka ilaahay
ilaahay sharta ha naga fogeeyo. war abaan xilsadhuux wuxuu yidhi shidana la joogtaay bax shar soo soctaay gudban. waraadhaha dagaaladii ka socday galgaduud iyo hiiraan midka hiiraana horreeyey dagaalla adag oo khasaaro badanna waa ahaayeen dawladdu wafdi culus oo degdegahay u magacaawday dagaalka galgaduud oo wasiirka arrimaha guduhu hoggaaminayo senatar cabdi qaybdiid iyo xildhibaanno kale iyo ay ka buuxaan midkii ka horreeyo hiiraanna ilaa hadda wafdi looma dirin marka nin baa wuxuu yidhi qararkeeda maxaas muddaa laysku qalaayay qawlna muusan lahayne ma dhiig kaloo qubanaayoo kan ka qaalisan baa qarafaan u boqoolay qaybdiidna ku raacay mase waa la qasbo qoorqabaday ku baxeen webagohaba dhambalama meeli illisayteelah ku hire wala kala lutrayla marii kore maskiin way adiga dad isdirirayaa lagu sheegee waxa faruuranood sheegaysa xayta war wariye cabdullaahi canshuur oo ka soo xigtay xanuunka faruuranka oo ku soo badanaya muqdisho. warnimayo horta way iska qayliseene laba deb hadba kii dambaa la danshaa haa kan horena ma leeskala hera ha hulaaqe war dad baaba waxay leeyihiin ehel dirira inay soo daweeyaan waftiga dawladdu uma bixine etoobiyaan la qabtay inay soo badbaadiyaan bay u baxeen. war aniga waxaan la yaabanahay dagaalka sukeeya hadda socdo wax kalaa ku soo saayiday qolo walba oo dagaalka ku jirto inay samaacdo weyn shiteen heesihii 77 ee dagaalka ahaa ay mid walba ku tuurteen eesaantii masiya good madax shabeelleefta maalageediyaa galay may isku qaadeen maya waxay isku qaadeen haddii aanan soo noqon qabiilkayga nuurow naar kama sokeeye allah ayuu ku nabadiyan arwadax kaloo qaadeenaan oga haddii aanan dhulkaygow dhig sokeeya kugu qubin beel hubaysan kama dhalan war wadaadkii iyo hortiisii bil ka hor ay shabaab gaalkacay ku dardareen mid ka waalan ayaa wuxuu la baxay sayidka adduun iyo aakhiro acuudu billaahi min ashaydaani arajiim ilka kana ishaa ka dhace warkaasu sugaami ilka kana ganfuurka kanya war waalli waxaa ugu daran baa la yidhi wadaad waasha aryaadhaha salaamullaah calaa xujaaj waayo kanu kii horaa i qarso ahaay warwar jiramog baa tihiine sanadkaan shaqadii laga rabay baarlamaanka maanta ayuu qabtay war hal san iyo hal maalmiya warwar maysiin arsenaal waa laga badiyey liverpool 5 iyo 1 ku garaacday arsenaal geeska afrika al-shabaab looga yaqaan warwarka ay dhax galinine miisaaniyadii waayaha lagu murmaayay horta war lagama soo celin sharcigii naafada waa la ansixiyey oo macal bidaartii ku jirto xeeroosadkii baarlamaanka waa la ansixiyey xaqsiintii ciidankana waa la ansixiyey warnimaya onta kale sax laakiin may ka tabeena dadku bubuurin inoo la kadara sheegaysaan kor iyo hoosba waa la ansixiyey haddii bidaartii xeer hoosaad la ansixiyey war xildhibaan jeesa wuxuu yidhi xildhibaan kasta inuu wasiir noqdo uu rabaa sababtoo wasiir ku-xigeenka xildhibaanka $7,000 u qaataa bil kasta wasiirkuna labalaabkeeda u qaataa waxaan maqli jira ninna shaahow shuba waayay ninna shaarkaa ku yaraaday warnimada mar horaa laydin yidhi xildhibaan markay ugu yar tahay rabay wasiir dawlo qabiil miday wadaagaan haddii booskii laga siiyo waa qodob dastuuriya inuu mooshin ciirsado waraa nimanka intaasoo mushaara qaata ma waxay rabaan askari $100 qaataa inuu waardiyeeyo oo difaaco oo u dhinto war niman yahow baydhabo maanta u dambaysay waxaa lagu qabtay gaari qarax lagu soo raray maalmo horena qaraxyo badanaa lagu qabtay waxaa kaloo dhowr jeer lagu qabtay dad wax dilay marka ciidanka baydhabo joogo maa muqdisho la keeno buda war bilaayada ninka saaridoy ciidan asluub laa meeli roogo aryaa ciidankaas buda ha naloo keeno waa u baahannahe warnimada warkii hore war soo dhaaf waa yeel yaaban baa yimid madaxweyne xaaf wuxuu yidhi maalin walba iyo habeen walba waftiyaal iska qulqulaya iyo ciidamo la soo amray iyo dal aan nala kala tashanayn ayaa socotuu yidhi cunaqabataynna waa nalaga sameeyey oo ilihii dhaqaalaha nalaga xidhay marka wuxuu yidhi waxaan ka baqaynaa wakhtiyada soo socda sidii roobow in la yidhaha soo qabtee soo xidha jeel nala ku tuuro war adooga madihta owaadaw waan qaraabanaynaa ma ayagaan u fadhinaynaa ya eedsadayda war hadduu nabad inool jeeb gashin lahaa xaaf meeshar mar lahaa aryaadhaha anigu waxaan la yaabanahay puntland waxay tiri wax dawladda ka socda ununka nooma imaan karaan xataa shaqaalo dawla hadduu yahay soo ma geli karo puntland ay dhaheen yaa puntland dawladda walee xildhibaano iyo wasiirra kuma laha waa yaabe warwarmaysiina jubbada dhexe xalay cirkaa looga soo dhaca shabaab
haw dambug kabtayda aawa kibriidkayga aawa ka dhacday waxaana ku dhinta baa la yidhi kuwa soomaaliga lama xisaabiyo lama rabee liibiyaan iyo suuriyaan niman ah liibiya xaynaga soo jiraysa laameeriya hadisha suuriya saxaa noo soo raaca sodooda saar ha lagu tumee wadaa liibiya hadda ka horba waa tii 77 etoobiya iyo ruush noo soo raacday ma ololadiion shagaystayaalu ma aha indaqadaaba mar horas dhintay maxa waxa moohaasiin waraasee sheekh axmed midoobe ciidankii nabadsugudu hadda dagaal hala galow yidhi mar dambe ayaa agteela tuurnaanuu yidhi waraa macluulo axmed midoobe maxaa lagaa siiya ayaan gafuurka ugu dhufanin arya adiga xaa kaa gala xaad gafuur ugu dhifa maadowmaha kuu jooga warnimayo hadal lama rabo iyo muran waddanku waa idin sugayaa waddanka u shaqeeya mas-uuliyadda waajibkiina ka qaata shaqada taalla waryaa dadkan qabaa'ilada ah isdilaya geedaha hoostooda isku leenaya maxay ku dhimanayaan xaa la isu leeyahaa dhulkaanu asaas soo heraahe waryaa mas-uuliyad darradaasaa la rabaa inaad ka hor tagtaan madaxa misaaru ha kaaga dhacde